asna dad uu ka dhashay run ahaantii oo magacii karaamo iyo sharaf oo leh oo la wada yaqaano arrinkan oo ninkan ka sameeyay adduun horumar u joogaa adna adduun horumar aad joogtaa tusaale waxaan kugu soo qaatay qofka maanta intuu meel kuu soo fariisto sharaftaada dhulka la galo meesha kugu dhow dacwo atay adduun horumar aad joogtaa aniga midda kaa cilnaya waxay tahay milyuunay wejigaasoo faraxsanaan rabaa inuu soo fariisto hooyo dulmanaad tahay ar milyuunay caawa haddaa cimaamadaas qaadati soomaaliya oo dhanaa kuu kacayso ninkaasna waa lagu wada jeesanaa joog hooyo dulmanaad tahay soomaali haddaa la raba inay ii kacday ninkaas shaqo kasoo qabato aniga xaa i keenay soomaalinima u socdaa haddaan shaqo kasoo qaban weyno oo wallaahiya oo bilaahiya oo tallaahiya social mediayga anaa gacanteeda ku tiraya weliba waxaan shaqo uga soo qabanaynaa magaca soomaaliyeed oo waxaa la leeyahay waryaa ninka ugu horeeyey oo waxaa tahay cunugiisa hooyadii ka xishoo waayey oo gogasheeda ka hadlay ninka ugu horeeyey soomaali intay jirto soo waxa garata maaha abbaaye macan jaanis maanta waxaa haysataa in adiga oo dumar ah oo caadada soomaalida dhaqanka ee leedahay horey lagu yaqaanay in gabadha madaxa loo salaaxo ninkana waryaa lagu yiraahdo in caawa adigi caawa in aan ku barino oo adoo xanuun dareemaya aan ku qabsano oo kugu dhigno abbaaye macan aniga iyo ku dhawaad shantaa kunayna daawanayso oo qabiil kasta leh na maqal aan kugu faraxno social media adoo ku filayso hal midka Soomaali adinka isku duuban maxay tahay nin asaga 4 saac soo taagan oo waxa aragteen afkiisa ka baxaayo oo dhagiina ku maqasheen inaan anigu intuu soo friisto aan bahdilon baqti jiido waxa adanta idinku jirto ku diidaysiin Soomaali adinka isku duuban maxay tahay Allah yastur awr meesha hadda joogtaa marka waxa aan ku diideyno adiga oo dulman oo waliba Soomaali inta ay jirtay qarni waxaan horay u dhicin in lagu sameeyay taasoo ah nin aad guri wadaagteen xilahaaga ahay oo kala tagteen oo ubad u hayso in uu gogashaada ka sheekeeyo asoo nin raga maadaama adiga ay wadadaas ugu furantay annaga waxaan ku leenahay annaga oo dhan oo Soomaali maxamedow inta social media joogta oo cid kasta leh oo team Musamsle oo cid kasta leh waxaan ku leenahay faataxadan halkaas markaa ka qaadato wixii ka dambeeya qolka arkiisu wuxuu noqonaa qol ninkaas runta loogu sheegayo adigana xal iyo xumeen lagu siinayo abbaaye macaan faataxadan qaado annaga inta rabna kaliya waxa taa ma taqaanaa qaladkaaga in way fiican u marno bas social mediahan maalin kasta wixii ka galayo adiga xumaanta ku noqonayna ee ka yaraadaan waa ku bariyaa abbaayo waa ku bariyaa caawa naga qaado Soomaali oo dhan oo live kan ku jirto asoo nin rag wuxuu garan waayay adoo gabar inaan noo garato naga qaado because waxa arkay 10 qof live uu saaran yahay intee soo qeen ilaa dadka isku wada mid ma mugti kuwa adigu caynaayo kuwa ka duwan oo live markay soo koraan dhahayeen waryaa wanee nin shay qaatay cidda sheeganaysa anaga kula ah warmaada cunugaaga yar ixtiraamin uu dhahay tuura la dhahay caawa haddaad halkaas adoo dumar faataxada nooga yeesho والله او بالله او طلاه لايف كستو لا سو فرتا wuxuu noqonaa live ninkaas runta loogu sheegayo xal iyo xumeena looga rabo dad ka dhashay adigu waxa sameeysaa kaliya waxa hata ka baryeeno ninkaas cafi ma ifaan waxaan ka baryeeno waxa waaye social mediahan hadii aad ku sii socoto fool xumo leh abay ka sii qaaday wallahi oo billah fool xumo sikay fool xumo oo tan ka daran oo soo socota ma jirto foolxumo fiiri foolxumo ka daran in naaskaygi laga dhigay oo la geeyay ma jirto social media foolxumo ka daran in macdayda qaaliga aheeda looga sheekay social media oo noqdo gabadha ugu horeysay oo laga sarrifo fasiilkeeda social media laga sheekeeyo foolxumo ka daran soo ma socoto foolxumo ka daran oday guri uu shala ku noolay ilmo uu aaba camal u ahay sawiradood intuu aruuriyo uu naaga kula xifaaltama u geey foolxumo ka daran Soomaaliya ma soo socoto foolxumo ka daran nin dhahay naagtaana la xifaaltama way isaga jawaabayo samba yeeli jiro timahan ebelow color on Denmark ku soo marsada xataa waa sheegiyo oo lacag aan ku soo marsado gabar ii marisa caayo igaga dhig macnaha waxa uu sameeyay horta hal mid abaayo adoorta mid ku weydiiya mid ku weydiinaa waxa ma taqaanaa damoor uu ka hadlo waa damoor uu isceebeyay damoor uu ka hadlo ma taqaanaa sikay hadda ma sabay fiidiyoyaashiisa ma aragto uu ku hadla le ma aragto dadka wareysanaya dad aniga ii shaqeynayaan
fiidiyoyaashuu ku hadlaaya la soo qabsada aniga hadalkiisa la ku karbaashaa bas reaction la bixinayaaba waa ogahay abbaay mid iga dhegeyso waa ku baryaa abbaay fiiri waxayran kuu sheegayaa aniga waxaa ku dhahay dadka waxayan dareemayn aan ku haysto oo aniga aan dareemayo social media xanuunkiisa waxaan ku iri qofkan ka aargooso oo wadooyin kaloo la maraa jiro wadooyinkaas mar laakiin tan social media abbaay macaan yacni waxaan kaaga celinaya waxay tahay adi dumaraa tahay always dumar waa cawro sharafaa leedahay kaaga sii daran magacaa leedahay haddii marka waxyaabaha laga soo jarjaray aad dhahdo maalin kastoo usoo fariisanaa waa kasii hadlaa ma qurux badno laakiin caawa haddii aad naga yeesho keliya social media inaad usoo fariisato qosolkaaga iyo baashaalkaaga aadan arrinkan hal mar uga hadlin waa kuma qofka xiniyaha leh oo intuu soo fariisto hooyadaas arrinkeeda ka hadli kara dib waayo waa u wada joognaa miyarkaysa anoo gamci ciyaaray miyarkaysa ayaan dhawata iska baashaalay arrintan dhan koraan uga baxay koraan u tuuray gaymamkaygaan qabsanayay lifekaygaan dadka uga sheekeynayay oo iska soo qabanayay magaciisa liguma soo qaadaynin lifeaan ka dhaha ma rabo inaan ka hadlo anoo iska baashaalayo soo fadhaqay carabkii weynaayo inta soo qaaday maamadaasay tinta wacdo bara dhuuso kaloo igu soo daayan oo asagaa igu soo celimo uma soo socon hataa ani waayahay allah ku barakeeya marka hadda mid ii samee anaa waxaa kaa ballan qaadaa iyo 5,000 eena daawanayso ku dhawaad oo qabiil kasta leh waxaa kaa ballan qaadaa caawa haddaad naga ballan qaado cimaamadana aad qaadato inaad ninkaas social media usoo fariisan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi aan ku iri waa loo wada fadhiyaa ayadoo cid kasta leh oo qabiil kasta leh haddii ninkaas daaqad damba uu soo fuulo oo magac kaagaa uu soo qaado iyo arrintaas ummadda ilaahay oo dhanaa u wada jeedo adiga abbaayoy waxaad samaysaa waxa ayan qof dumara hore u sameyn adoo hooyo dhibana cimaamada qaado CK ma ogtahay ninkan hadda inay nafta qaarka dambe loogu jirto mugta qaarka hore qaarka dambe dhan way ka baxda nafta mugtahay lugaha iyo dhabarka iyo waxaas dhan mayduu ka yahay nafta waxay ugu jirtaa halahan hore bis mar dhow halahaas horena way ka baxee halahaas hore intay ka baxaysaan waxaa isu dhawayaa intay nafta baxayso milyuunay sii jijiid waa naflacaari asagiyaa naflacaariya dhiiqow ku jiraa noloshiisa dhan baa qaribantay ehelkiisi baa waxaan ku yidhi adduunya kusoo fatahay noloshiisa ishiisaa bannaanka soo baxday macnaha doqonnimo darteeda ishii bud ka soo tiri anna waxaan rabaa inaad sii bakti jiido maxaa talaa marka soomaaliya waayaad susu ii kaadi marka abbaayoy sababta aan kugu xargaganahay oo weli aan kugu dheganahay mataqaanaa wallaahi wax kala maahan waxaan kugu dheganahay waxay tahay dadka commentiga soo qoraya xanuunka ma dareemayaan social media uu leeyahay aniga waa kula dareemaya waxaan kugu dheganahay tusaale yaraan ku siinaa fiiriya dhegeyso waxyar tusaale yaraan ku siinaa waxaan ku iri ninkaas damaar uu daaqad soo karo kaa hadlo ma waxaa moodaa horta in jacayl ma kordhisanayo foolxumo iyo xumaanuu kordhisanayaa hadda adi anaa ku qaba tusaale milyuun waa ku qabaa calafkiyaa dhammaado waa kala tagnay waxaad doonta haddaad akriso ama si hoose u dheh ama kor u dheh ama waxaad doontaad walaaqdo haddaan aniga inta soo fariisto oo anigoo kaa hadlaaya aan public iskeeno hadal kastaan dhahayo waxay ka dhigan tahay dumar vs dumar taasoo micnaheeda tahay raganimada waa garasho yacni haddaanba diyaar u noqdo gabar aan kala tagnay aan meel usoo fariisto aan dhaho saanay aheyd kanay aheyd yacni gabara hadluuso damoor aan hadlo waa damoora anis caabenayo waa meesha u dambaysay aan kugu dejinayo damoor aan hadlo waa damoor aniga aan iscaynayo war ninkaas waxaan kugu iri hadduu meel soo fariisto uu arrinkan ka hadlo yacni waxaa u bilaabatay cay uu asaga iscaynayo taasoo micnaheeda tahay dumar caynaya dumar kale khalaas midaan kuu sheegaya waxay tahay marka mataqaanaa abbaayo sababta aan kuu dhahayo social media ka gaabi arrinkan ee hoos u dhammaysaa waxay tahay mataqaanaa fiiri adiga waxaa noqonaysaa gabadhii ugu horeysay fiiriya gabadhii ugu horeysay ee sharaf iyo karaamo iyo karoonaasho ka roonaatay ninuu eke xusmee waayey gabar ay kala tageen iyo cunugiisii ayada laakiin faataxa qaadatay ee garatay in ay aamusto hadda mayga wuu idiin socdaa waa la socdaa xaalka aniga labadiinaba mayga wuu idiin socdaa adiga ma noqonaysaa qofkii ummadda ilaahay ducadooda qaadatay ee ayadoo dumar ah ka gaabisay